بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعفيفي مركل جنالكين عفيفة جنال كسو دواada dhamaantiin walaaladey meel walbo aad joogtaan. Ramadaan mubaarak, jimco mubaarak ayaan idin leeyahay. Maalmaha barakeysan fadligooda iyo khayrkooda in Ilaahayna waafajiyo dhammaan ummadda Islaamka meel walbo ay joogaan, gaar ahaan ummadeena Soomaaliyeed inuu Ilaahay ka dhigo dad ayaga isuna naxariisto si uu Ilaahay noogu naxariisto. Dhammaanteen waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak, jimco mubaarak. Mar labaad soo dhawaada janalka kusoo dhawaada Cafiifa Janal. waa barnaamijkeenii talo iyo tusaale oo maalin walbo jimcaha idin soo gudbin jiray. insha Allah kusoo dhawaada idin leeyahay dhammaantiin asxaabta intii hore ila socotay, intii igu soo biirtay, intii igu soo biiri doonta dhammaantiin waad mahadsantihiin. kusoo dhawaada janalka inta cusubna janalka subscribe dhahda hore u gala, fiidiyoyada kala soo daawada, barnaamijyo iyo waxyaalo badan oo waxaad ka faa'iidi doontaan, aad ka heleysaan. maanta waxaan noo wadaa talo iyo tusaale. waxaan kusoo qaadanayaa dhibaatooyinka iyo dhacdooyinka iyo waxyaalaha wadankeena ka jiro, sida aniga inta aan bulshada dhexdeeda ka arkay, intii aniga aqli ahaan markii aan fiiriyo wax fiican aan leehaynin aan idinkan idiin soo gudbinayaa. inaad idinkana dabcan dad ila mid ahaa badan, idinkan aad ila aragtaan intii ku degdegtayna wixii qalada inay iyagana markaa iska daayaan rajeynayaan Ilaahay idmo. insha Allah marka barnaamijka waxaan u kala qaadayaa 3 qayb. 3da qayb waxay kala yihiin dadkeena Soomaaliyeed. mar walba waxaan nahay dad aan isku kalsoonayn, ayagii wanaagga isla jeclaynin, wax wada qabsi aan aqoonin, mar walba is eedo is dhaliilo, sidaas aan nahay. dalkooda aan jeclayn, dadkooda ayna ahayn dad is jecel oo isku duuban, haddana jecel dara kale iyo wadankooda inay mar walba ay ka tagaan. marka taas inay noogu wacantaaba laga yaabaa wadani la'aanta oo aysan naga muuqan inaan nahay dad wadaniyada iyo ay ka muuqato dal jaceylki. marka taasna way keeni kartaa inaan wadamada kale aan usii hanqal taagno, keenina aan wanaag la jeclaynin, wanaagga muuqdo aragnana aan indhaha ka xirano, oon mar walba mucaaradno, oon dagaal iyo buuq iyo dhibaatooyin iyo wax fadeexad intaba aan u horseedno, oon dadka ku gubaabino, hadday dhacaan aan soo bandhigno. marka intaba ani ahaanteyda ma ila noqon wax fiican. marka 3 qayb aan u kala qaadayaa. dadkii waxay isugu soo aruureen kulli horta kor waxaa laga wada yiraahdaa mucaarad. marka qaybta muxaafidka iyada dib aan u dhiganayaa. tan qaybta waxaan kusoo qaadanayaa mucaaradka ah. mucaaradka ayaga 3 qayb ay u kala baxaan ani aragtideyda. qayb waa dadkii siyaasiyiinta ahaa oo xilka soo qabtay oo haddana isku taamaya inay mar labaad xilka ay helaan. qayb waa qaybtaas. qaybna waa qayb taageero ah oo dadkii qaybahaas kale oo iyaga danahooda wata ku taageerayo qabyaalad iyo nin jeclaysi. qaybna waa iska qayb bulshada inteeda kale ah oo wixii dhibaato markaa wadankii ka dhaco iyo wixii markaa meeshiba laga hadlaa iskaga darsado, oo markaa wixii ay arkaan iska soo qaato. badanaa waxyaalalka falalka foolka xun iyo wixii dhaco, wixii dhibaatooyin ah, wixii meel dhib ka dhaco dhanbo soo qaado oo usii qaybi bulshada inteeda kale social media soo geliyo mar walbo. qaybtaas dhaxaadna waxay u kala qaybsamaan qayb ku xumeyn ah oo markaa dowladda ku xumeynayo, iyo qaybo ayaga iska soo qaato oo sidaa meelaha ay leeyihiin page-ka hadday noqoto YouTube kuwa ah, meelahaas ayagana kusii camirto oo inay kusii shaqaystaan meeshaas ayagana wax ka raadinayo. qaybna waa qayb dowladda ku xumeey iyo markaa xukuumadda joogta ay ka tahay. marka intaba dil isku soo daro waxa waaye kulli dalkoodii iyo dadkoodii wax u dhimayaan, dhaawacayaan, sawirro xun ka gudbinayaan. ani aragtidayda sidaas ay ila tahay. laga soo bilaabo kuwii xilka soo qabtay oo ugu waaweynaa oo maantana jeclaa in mar labaad la sii doorto ama xilal kale loo sii dhiibo. dadkeeda taageerada iska ahaa iyagana oo iska sacbinayay oo markaa u sacbinaya dadkaas ay jeclaysiga iyo qabyaalada ay ku daba socdaan. marka 3daas dadkeen u kala baxaan. marka kuwa koobaad oo ah dadka xilka soo qabtay haddana xilka raadinayo oo hadda haddii dhibaatooyin kale ay dhacaan oo wadanka dhexdiisa wax ka dhacaan, wixii wax walba oo dhaco oo iyagana shalay markay xilka joogeen wixii dhici jiray waxa ka duwan aan ahaynin, markaa dowladda ku eedo oo ku dhaliilo. hadday noqon lahayd wadamada shisheeye faragelinta ee dalkeena ku hayaan oo kale,
marka ay farageliyaan ama ay dhahaan waxaas ma taageersanin ama wax walba oo adiga niyad jab dalkeena ku ah iyo jiritaankiisa ku ah wax fiican aysan ahayn inayna dhahaan nagana mudnayn dad waxay yihiin aan ka xanaaqin aan ka dhiidhin oo ku farxo faraxtintaas ay ku muujinayaan farxadan waxay markaa ku haystaan ayaga aqligooda siday u arkaan markaas xukuumadaas joogto madaxweynaha markaas xilka haayo asagay u maleeyaan wax asaga maxay ahayd waxyeelo ku ah waxyeelo kaligiis kuma ahan anagoo dhan inagu wada tahay inta xil hayso iyo intaan haynin intii wadankan u dhalato dhan oo Soomaaliya ay niyad jab ku tahay ay magac xumo ku tahay in wadamo shisheeye ay intayna soo hadallo xun oo soo qaataan oo maxay ahayd dhahaan dowladdaas ma taageersanin ama xukuumadaas ma taageersanin oo mar walba idinkiina aad u qusushaan idinkoo dad xilal soo qabta ah biri raba haddana inaad sii qabatiin marka xukuumadda maanta joogto maxay haday noqoto beesha caalamka inteeda kale haday noqoto midowga Afrika oo had ugu dambeysay la wadwaday maxay ahayd maanta iyo shalay intaba inaad wax walba dowladda ay ku duraan aad ku faraxdiin kuna sacbisiin adinkana biri markaad meesha fariisatiin sidoo kale ay idin dul taagnaanayaan hadalladaas gumeysiga ah iyo wixiiba xunba sidoo kale idinla dul istaagayaan ma aha inay maanta xukuumadda joogto ay maxay ay saas ula dhaqmaan adinkana biri ay tahay inay har idin jiidaan isku mid ah u tihiin waa inaad taas ogaatiin marka taas waa inaad u aragtiin wixii wadanka ka baxsan maxay wixiina ma ahan mucaaradnimo kaliya ma ahan mucaaradka dadka ah waxaa la rabaa inay markaas dowladda wixii xumaan ah ama wixii qalad ah sameysay ay ku dhaliilaan oo ay tusaan laakiin ma ahan maxay ahayd hadallo oo wadamo shisheeye ka yimid ama wax nagu ah maxay ahayd niyad jab ama dhabar jab nagu ah inaad ku faraxdiin ma ahan mar walbo inaad dad shisheeye oo maxay ahayd danahooda kor ah wato oo xataa idinka aan waxba idin sheeganin laakiin idinka sii shisheeye aqligooda ay wataan idinku dul adeegtaan taasna wax fiican ma ahan biri markaad soo fariisatiin isku siyaa u tihiin isku siyayna idinla dhaqmayaan marka waxaa la rabaa wixiiba wadanka ku ahlid inaad kasoo wada horjeesatiin wixii gudaha ah waa ku dhaliili kartiin dowladda waa ugu horjeesan kartiin laakiin wixiiba shisheeye kasoo yeero oo anaga nagu ah dhabar jab inaad ku faraxdaan oo mar walba tiraahiin xukuumadan sidaan lagu yiri waa ku fiicnaa in sidaan la dhaho maxay maanta beesha caalamka kala kulantay midowga Afrika maxay kala kulantay oo wax walba oo ay dhahdo oo maxay ahayd idinka aad u aragtiin wax fiican laakiin aan noo ahayn dal iyo dadba wax fiican inaad ku faraxdiin ana aragtideeda ilama ahan marka dadka xelalka soo qabtay haddana raadina waa inay dib isugu noqdaan oo inay wadanimo ay ku jirto in yar uun iska raadiyaan oo mar walba xumaan joog aysan u noqonin oo shacabkii hadda waan soo aragnay dadka xelalka soo qabtay inay shacabkii iyo maxay ahayd ciidamadii iyo ay u gudbinayaan tusaale xun marka taasoo kalena wax fiican ma ahan ayagana taasaan uga baxaya inay gawaantoobaan fiican tahay marka dadka maxay ahayd taageerada ah oo shacabka ah adinkana waa inaa ogaatiin maxay ahayd dowladda waxa ay noo tahay waxa ay maxay ahayd wadan walba inuu dowlad iyo nidaam iyo kala dambeyn leeyahay mar walba hal madaxweyne yeelanaya madaxweynahaas maxay ahayd dhulka kama dhalanayo maxay ahayd qabiil ka soo jeeda qabaa'ilada Soomaaliyeed kamid ah midkuu noqdo oo marka Ilaahay noo dooro marka mid walba oo yimaado in si wanaag loola shaqeeyo oo aad nin jeclaysiga iska dhaaftaan oo wixii maxay ahayd saxan oo aad aragtiin oo dantiina ay ku jirto oo dalka u dan ah oo maxay ahayd dadka u dan ah inaan ka wada shaqeyno sidaas noo fiican shacabka inteen kala daanahay nabadda noo wanaagsan dalkeena oo degan oo maxay ahayd adduunka intiisa kala lamid ah noo fiican oo wanaagsan marka mar walba hadda xukuumadeena joogto inta aan soo aragnay inay u fiican tahay maahan uma xuma marka waa inaad maskaxda ka shaqeysaan adinkana oo maxay ahayd dadkan danahooda wato oo soo shaqo tagay aadan ku daba dhumina oo la isdhaamo taasaa fiican adinkana taasaan idin farayaa tan saddexaad ayadana dadkan maxay ahayd mar walba wixii dhaco wadanka oo dhibaatooyin dhaco oo qaraxyo haday dhacaan haddii dhibaatooyin kala dhacaan haddii meelo ay tahay iska nidaam xumo ama ka jirto maxay ahayd markaa fool xumo ay ka jirto inaad soo bandhigtaan ma ahan oo social media aad soo dhigtaan wax fiican ma ahan sida ani aragtidayda ah hadda tii shalay ugu dambeysay oo airportka ka dhacday dhibaatadaas oo kale aad la soo wada ordeen meel walba aad dhigteen oo intaasna ay idinka tahay maxay ahayd dhibkan dhac soo sheega maxay ahayd xukuumadda maxay ahayd ku dhaliila dowladda ku dacaayadeeya ma ahan taas dowladna uma go'no
qof xil haya gooni uma ahan qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ee maxay ahayd qusaysaa wixii dalkan laga gudbiyo xumaan ah oo sawirro xun ah marka taasoo kale wax fiican ma ahan waxyaalahaas oo kale markay dhacaan ma fiicna in social media la soo dhigo waa adiga afkaaga maxay ahayd isku waxyeelaysay isku maxay ahayd ceebaysay wadanka waa wada leenahay maxay ahayd wixii xumaan ka wada dhaco wayna dhibayaan wixii wanaaga oo qurux ahna waan ku wada farxaynaa marka waa inaad u ogaatiin sawirrada hadday noqoto fiidiyoyada waxyaalaha foosho xun oo mar walba lasoo dhigayo social media wax fiican ma ahan ani aragtidayda marka idinkan inaad taas aad iska day doontaan rajeynayaa marka idinkan taas aan idin faraa mar walba inaad soo dhigtiin aniga waxaan jecelahay marka aan wax ka soo dhigayo hadday inay noqoto fiidiyo quruxsan oo meelaha quruxsan ah hadday noqoto sawirro meelaha quruxsan meelahaas aniga aan badanaa adeegsadaa marka tusaale idin siinaa hadda ka hor marar waxaa jirta aan live iyo aan YouTube ka soo galo waxaan iska soo saari jiray sawirrada maxay ahayd meelaha xeebaha ah ama meesha webiga iyo meelahaas oo kale haduu meesha markaa wadanka bilicdiisa ugu quruxsan sawirradaasan soo saartaa marka dad waxaan arkay i weydiinaya il meeshaan waa meeshee Soomaaliya waa markaan dhaxaliga Soomaaliya in ay meel saan ay qabto maba u maleynayn marka adduunka sidaas aan kaga aaminsan yahay in aan nahay wadan iska dhibaato badan aan lahayn meel quruxsan aan meel nidaam aan lahayn marka hadda waad arkayseen ninkii cadaanka ahaa ayaan hore wuxuu soo dhigayay maxay ahayd YouTube-ka oo idinla wada fool xumaa marka tiya adinka gacantiina ku soo dhigaysiin asagina maxay ahayd waa si yaabaysiin waxaad leedahay ninkaas sidaas noo galay sawirro xun naga soo gudbiyay aan ninkaas wax weyn uma arkin waayo dadkii shacabkii ahaa oo ayaga wadankooda wax fiican ka gudbi lahaa gudbiyo asaga hadda markuu ka saaray YouTube-kiisa waxaan arkay Soomaalida inteeda kale oo degsatay oo markaa fiidiyoo inta degsaday ayaga soo gashtay marka maxay balaamaan ninkaas ayaga ka sii xunba ninkaas asaga markii waa arkay in maxay ahayd laga dacwoodo uu ka saaray laakiin adinkii inta degsateen aad soo gashateen marka Soomaaliya waxaa fiican in la isku noqdo oo la is xisaabiyo oo maxaa noo quruxsan maxaa noo dan ah maxaa dadka la wadaagi kartaa maxaa social media dhigi kartaa wax walba ma aha inaad iska soo dhigtid oo munaasab aan ahaynin marka intaas maanta idinku soo gudbinaayay barnaamijkeena talo iyo tusaale oo maalin walba Jimcaha soo gali jiray insha Allah maanta intaasan ku soo simaaya hadii Ilaahay idmo marka ku soo dhawaada channelka subscribe dhaha sida hore idinku sheegay like iyo share insha Allah waa noo Jimcada dambe iyo hadii Ilaahay idmo insha Allah khayr badan idin dhaafay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.